qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa mar kale madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbaday inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ahaa inuu gargaar caafimaad oo degdeg ah u fidin doono wariye Cabdirasaaq Balaaq oo midaba ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho. Warkan waxa inoo faahfaahinaya wariyeena Maxamed Ibraahim. kulankan oo ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaalida ay kaga dalbadeen madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii hore oo uu sameeyay wariye Cabdirasaaq Cilmi Jaamac Balaaq kaasi oo ahayd inuu qaadayo caafimaad dalka dibadiisa ah. Abaan Cusmaan Cabdullaahi Goore oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ka rajaynayo madaxweynaha dowladda Soomaaliya inuu fulinayo ballanqaadkii uu sameeyay wariye Balaaq balse ay ka dalbanayaan inuu dadajiyo maadaama uu xanuunsanayo wariyuhu. waxaana isu kaayo keenay waa dhibaato jirta walaalkeen Cabdirasaaq Balaaq oo xaalkiisu aad u sii liidanayo ayay maanta isugu yimideen saxaafadda Soomaaliyeed arrintiisa waxaanan codsanaynaa oo aan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa ballanqaadkii uu noo ballanqaaday wariyahaas xaalkiisa inuu wax ka qabanayo oo noo ballanqaaday waxaa ka soo wareegtay muddo bil ah kadib waxaa la qaaday dad badan oo dhaawacyo soo gaareen ayaa dalka laga qaaday sida dadkii ku dhaawacmay Hotel Ambassador hadda kuwa kala la qaadaya oo dadkii ku dhaawacmay ay ka mid yihiin Hotel Nasahablood dad badan ayaa caafimaad dibadda loo qaaday intaasna Cabdirasaaq xaalkiisu aad ayuu u sii liidanayaa madaxweynaha Soomaaliya ballanqaadkiisina bilaa ka soo wareegta waxaan xasuusinaynaa madaxweynaha mashquulkiisa ayaa badan inay daacad ka tahay waa ognahay oo uu rabay inuu caafimaad u qaado hase yeeshee waa uu ka mashquulay waxaan xasuusinaynaa Cabdirasaaq xaaladiisu inay intii ka sii liidatay madaxweynaha marka waxaan leenahay adiga u madaxo mawla ku xil saaree maaree dhibaatada Cabdirasaaq xaalkiisu waa liitaa madaxweyne inaad arrintaas wax ka qabato ayaan ka codsanaynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa cidii kale ee wax ka qaban karta xaaladda Balaaq waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo wax ka qabanaysa xaaladiisa intaas ayaan rabnay maanta inaan ka hadalno. gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Nuusa Jamaahir Jaamac Aadan oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed cidii wax u qaban karta wariye Balaaq ayna u qabato maadaama uu aad u xanuunsanayo wariye Balaaq. waxaan soo dhaweynaynaa dhan walba oo doonaya runtii inay xaaladda caafimaad ee Balaaq runtii wax ka qabtaan aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan mar kale xoojinayaa Nuusa guddi bay hore ugu saartay arrinta Balaaq oo groupka Arizona ay ka mid yihiin waxa ay noo soo gudbiyeen waxay tahay in meel fiican ay wax marayaan laakiin ay u baahan tahay hawshu dardargelin iyo xoogga in la isugu geeyo sida darteed ayaan mar kale waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dowladda Soomaaliyeed ballanqaadkiisii ahaa inuu noo baxnaaniyo oo uu dusha saarto xaaladda caafimaad ee Balaaq inuu xoogga isugu geeyo inagoo og inay jiraan shaqooyin badan waajibaadyo badan mashquul badan oo madaxweynaha u yaala haddana waxaan jeclan lahay inaan inaguna culays ku sii saarno bal arrinka inuu dareen gaar ah siiyo. ballanqaadkii uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wariye Cabdirasaaq Balaaq ayaa laga joogaa muddo bil ah wararka ugu dambeeyay ka imaanaya xaaladda caafimaad ee wariye Cabdirasaaq Balaaq ayaa sheegaysa inay tahay mid aad u liidata isla markaana ay sheegeen dhaqaatiirtu inuu u baahan yahay wariyuhu caafimaad degdeg ah in looga qaado dalka dibadiisa.